Aabe wanaagsan saaxiibayaal idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho ayaad naga dhageysanaysaan. Waxaan ku bilaabayaa wararkii ugu dambeeyay ee ka imaanaya gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Guriceel oo 48 saac ee lasoo dhaafay ay ku dagaalamayaan ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya iyo kuwa maamulka Galmudug oo isku dhinac ah iyo xogaga hubeysan ee Ahlu Sunna. Dagaal shalay bilowday ayaa ilaa caawa waxaa la sheegayaa inuu ka dhacayo xaafado ka tirsan magaaladaas. Maanta waxaa ku gacan sarreeyay oo inta ugu badan magaalada Guriceel la wareegay ciidamada militariga Soomaaliya, iyadoo gelinkii dambe ee maanta laga dagaalamayay duleedka xaafadaha waqooyi, laakiin waxaa la soo warinayaa in caawa ay dib u soo laba kaclayeen xogaga Ahlu Sunna, waxayna qabsadeen xaafadihii maanta lagu dagaalamay kadibna laga qabsaday ee waqooyiga magaalada. Wiilwareedyo ka agdhow aagga dagaalka ayaa waxay idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho waxay u sheegeen in ciidanka dowladda Soomaaliya ay joogaan xilligan saldhigga ciidanka booliiska xarunta degmada agaarka xarunta shirkadda ee Hormuud ilaa dhinaca koonfureed ee magaalada oo dhan, halka ciidamada Ahlu Sunnana ay joogaan xarumo ay ka mid yihiin Badar Labo, jaamacadda, iskuulka Almaamuun iyo kontaroolka dhinaca koonfureed ka jira ee Dhuusamareeb xaggeeda. Waxaana hadda istaagay dagaalkii maqribkii socday iyadoo la maqlayo rasaas teelteel oo labada dhinac isu adeegsanayaan. Magaalada koronto ma lahan, sidoo kale adeegii isgaarsiinta ayaa ka maqan. Waxay taasi suurto gelinaysaa in sidaas oo kale xalay iyo caawa magaalada aanay wax dagaala ka dhicin marka laga reebo kii maqribadii. Waxay soo taraya baaqida loo jeedinayo ee ahayn dhinacyadu wada hadal ay ku dhameeyaan xiisadda u dhexaysa. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa war qoraal ah oo soo saaray wuxuu ugu baaqay in ay labada dhinac dagaalka joojiyaan, isla markaana xiisadda iyo dagaalka u dhexeeyaba lagu dhameeyo wada hadal. Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu yidhi waxaan tacsi u dirayaa dhammaan ehelada iyo qoyskii ay ka baxeen dadkii ku geeriyooday dagaalkii Guriceel. Dhaawacyadan waxaan u rajaynayaa bogsasho degdeg ah. Waxaan ku baaqayaa in si degdeg ah oo aan shuruud lahayn loo joojiyo dhiilada codaadeed ee ka taagan Galgaduud. Dagaalku ma xalliyo khilaafaadka siyaasiga ah ee waxa uu abuuraa kala fogaansho hor leh. Odayaasha dhaqanka, siyaasiyiinta, ganacsatada, haweenka, dhallinyarada iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada waxaan ugu baaqayaa in ay qaataan kaalintooda ku aadan daminta colaadda Galmudug ka jirta, lama aqbali karo in dhiigga dhallinyaro Soomaaliyeed uu u daadanayo xilligan 2022 bulshada inteeda kalena ay daawato dhibaatada halkaas ka jirta. Kala aragti duwanaanshaha siyaasadda waa in lagu xalliyaa miiska wada hadalka iyadoo la dhowrayo jiritaanka sharciyadda iyo midnimada dowlad goboleedka Galmudug, ayuu yiri madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Senator Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid sidaas oo kale wuxuu ku baaqay in la joojiyo dagaalka Galmudug. Haddaba mar haddii labadii dhinac 48 saac ay dagaalamayaan, ugu yaraan 60 qof ay dhinteen, dad ku dhow 200 oo qofna ay dhaawacay soo gaareen, dadka dhintay ay ku jiraan saraakiil muhiim u ahaa ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya iyo rag ka barbar dagaalamaya Ahlu Sunna, muxuu xalku noqon karaa? Ma in la sii dagaalamaa mise wadooyin kale ayaa furan? Maxamuud Cadde ayaa qadka telefoonka ku jira. Maxamed, maxaa kaaga muuqda xaaladda Galmudug? marka ugu horeysa waa salaamayaa dhegeystayaasha sharafta leh kulmiye iyo Xuseen iyo shaqaalaha kulmiye. Intaa kadib waxaa ii muuqda wixii aan ka digaynay hadda in gacanta lagu hayo. waa ayaan daro in dhalinyaro fara badan labada dhinacba ay isku hoobteen, isku riiqdeen, dhiig fara badan iyo dhaawac fara badan uu dhacay, iyadoo laga baaqsan karay oo la adeegsan karay caqliga iyo aqoonta dowladnimada. dowlad sideedaba waxa weeye dadkeeday u adeegtaa ee dadkeeda ma layso. cid allaale iyo ciddii lug ku leh dagaalkan waktigeeda horta lala xisaabtamaya. hadda waxa muhiimka waxa weeye talaxumadooda iyo doqonnimadooda natiijadii ka soo baxday waa muuqataa. ma oran karaan ma ogeyn waxaan. waa loo sheegay, waa looga digay, ka fiirsadaa la yidhi. siyaasiyiinta mustaqbalkooda ayay saameyn ku yeelan doontaa. 17 bishan anigii adiga ka wada hadlay. waxa weeye ayaan daradaa ha joogtay. hadda maxaa la qaban karaa? hadda waxaa la qaban karaa waxa weeye in dagaalka la joojiyo, in aanan lala tashanin dad aanan ehel u ahayn maamul, dowlad iyo mas-uuliyad nooc kasta ay tahay. waxa weeye qofka aanan khibradda xushmad u haynin ma istaahilo inuu xil qabto.
wuu la go-ayaa taladu indhaha ka ridayaa doqonnimada ma aha oo keliya maamulka galmudug mid saameynaysa waxa ay ku soo noqonaysaa qaanuun diididii iyo dastuur diididii madaxweynaha xilkiisu dhammaaday waxaana waxa weeye waxa laga dhaxlayo dagaalkan hadda intaan way ku filan tahay waa ayaan daro waa laga fiirsan karay hadda khasab wey maxamed siday rabaan ay u heli waayeen waa in ay maqlaan waxgaradka aqoon-yahanada ururada bulshada waa in la joojiyaa dhiigan macno darrada ee dhammaanaya maxamed waa mahadsan tahay horena u sheegnay laguna xalliyo wadahadalkan lagu baaqayo waxaa xusid mudan in ahlu sunna inta jeer ee wadahadal lala galay aanay xisaab lahayn dowladdii kumeel gaarka shariif ka soo bilaab dowladdii xasan sheekh midda hadda jirta dhowr jeer bay la gashay kaba soo tag intaas hadda intaanan guriceel dagaalka ka dhicin waxaa jiray baaqiyo ay galmudug dirtay dadaallo nabadeedoo la sameeyey intuba way socon waayeen yaa lala hadlaya waan ahlu sunna ahayn ahlu sunna ma aha koox cusub ma siyaasadda dhowr iyo 10 sano oo ugu dambeeyey waa ku jireen madaxdii hore ee gobolka galmudug iyo madaxdii hore ee dowladda dhexe ee soomaaliya way la hadli jireen wadahadalka hadda xeer bay ahayd markii ugu dambeysay ee la ballaariyey maamulka galmudugna waxaa lagu gaaray is-afgarad siyaasiyiintii hore waxay ka meereysanayeen in ay dagaal galaan dagaal way geli kareen laakiin nin walba waxa uu door bidayay in nabad wax lagu xalliyo maamulkan ayaa waxaa la yimid indha adayg iyo meeshii la rabay uturid udumid la tashi waxaa yimid anaa amiir ah hadda waxaa muuqata 48 saacadood ka hor xaalka siduu ahaa iyo xaalka hadda siduu uu yahay dhiig badan daatay dad badan dhinteen waa lagama maarmaan in wada hadal arrintan lagu soo dhammeeyo riiqasho intaan ka badanna ma sii socon karto muxuu noqon karaa waa islada marka wada hadalka hadda bilaaban kara mar haddii labadii dhinac ay istijaabiyeen ayna muuqato in weli ay kala awood badnaan la-yihiin wada hadal noocee buu noqon karaa shuruudaha iyo culeyskiis intuu la ekaan karaa see loo maareyn karaa waa islada shuruudo ma jiri karaan wada hadalka hadda labada dhinacba dan baa ugu jirta in la wada hadlo inkasta oo ay adkaanayso in laga dhaadhiciyo dhinacyada in ay wada hadlaan laakiin hadda dantaa kalifaysaa nin walba dhiiggiisaa qulqulaya maanta oo dhan baa dagaal socday meeshii laga bilaabay saaka ayaa lagu soo noqday shaloo dhan baa dagaal socday meeshii laga bilaabay ayaa lagu soo noqday waxa weeye haddii berri haddana ilaahay kama dhige oo dagaalkan sii socdo siduu maalintii oo dhan u socdo markay dad dhammaadaan meeshii laga bilaabay bay kusoo noqonaysaa jugjug meeshaada joog waxaa la rabaa caqli waxaa la rabaa aqoon waxaa la rabaa dulqaad waxaa la rabaa sabar aaraaxda dadka inay ku kala duwan yihiin waa sunno wey siyaasadda in lagu kala duwan yahay oo mucaarad iyo muxaafad jiraan dastuurkay ku qoran tahay hadda ahlu sunna markii hore asxaan meeshaan ogama bixin xoog baa lagu muquuniyey haddana waxaa la isku dayey in xooggii lagu muquuniyo waa aragtaa meesha ay marayso haladii way sii kuwaatay waxaa la rabaa labada dhinacba in ay u turaan shacabka ay ku dul dagaalamayaan ee duurka u qaxay iyo magaaladan oo ahayd magaaladii ugu dakhliga wanaagsanayd gobolka galmudug oo xirantay iyo dhibaatada xagga caafimaadka dhakhaatiirtii isbitaaladii wax shaqayn kara ma jiraan xaaladda dagaalkana waxay soo kordhisay gurmad degdega ayaa loo baahan yahay shacabka in loo fidiyo ciidamada dhaawacma loo fidiyo xaalkii haddii waad arkaysaa 100 iyo in ka badan oo dhaawaca ayaa guryaha lagu haystaa marka waxa weeye arrintaasi ma sii socon karto ciddii saaxiib caqli u ah waa in ay laqdaa sibilka iyo madax adeyga waa in danta meesha taalla ee danka soomaaliyeed waa in laga shaqeeya askarta la isku hoogadayo oo la isku baabi'inayo oo labada dhinacba ka tirsan ee garabka ku wata calanka soomaaliyeed waa in ay joojiyaan dagaalka siyaasadana lagu xaliyaa wada hadal ciidankana sidiisaba wuxuu u taagan yahay inuu cadow la dagaalamo
ma aha in ay dadkooda kusoo guryo noqdaan. waayo waa mahadsantahay maxamed. su-aasha ugu dambeyso weli sida muuqatahay hadafkii dagaalka loo qaaday labada dhinac oo midna ma gaarin. waxay xaaladdu u eg tahay inuu dagaalka sii socon karo. ma jiro wax dadaal nabadeeda oo ilaa hadda socda ama bilowday ama xataa laysku dayay xiriiradii aan samaynay. yaa weeye cidda aan galmudug iyo ahlu sunno ahayn ee geli karta xaaladda galmudug maanta ee xal ka dhex raadin karta oo nabadeyn karta? ma dowladdii dhexe oo ciidamo ku daabulaysa? ma odayaashii dhaqanka reer Guraceel oo iyagoo barakac ah duleedkii magaalada weli isku hiifaya ama aanan heshiis ku ahayn sida wax ku socdaanba? cidda la sugayay wada xisaabtanka dowladda dhexe iyo la xisaabtanka mas-uuliyiinta kale ee maamulka galmudug oo uu ka mid yahay baarlamaanka, gudoomiyaha uu yahay gacal, waxa weeye marka lala xisaabtamayo waktigeeda hala gaaro. hadda xaaladda meesha taagan waxa weeye labadii dhinac dhalinyara isku riiqatay oo qoriyo isu sidata oo islaynaysa, mana muuqato in dhiigan daadanaya uu joogsanayo inuu kasii daro mooyaane. waxaa loo baahan yahay xaalad degdeg ah. dadka ka dhexdhexaadka ah arrimahan waa in ay soo galaan oo ay labadan dhinac lagu qanciya in ay siyaasadda ay wadaan ee dagaalka ah inuuna marnaba xal noqonin. ugu dambayntii miiska wada hadalkaa la imaanaya, ama jeclow ama necbow. haddii aad qori wax ku weydidna ogow inaad siyaasad wax ku helayn. marka hore ayay ahayd inaad xeelaysato, siyaasadaysato, saaxiiba kasbato, dadka maxaanku idhahdaa la tashato, ismaslaxo, isu tanaasulo. hadda dhib markuu dhaco dhabaqa meel beeshay. xaalkani waxa ay ka shiftay madaxda maanta ee Soomaaliya ka talisa sida ay siyaasad ahaan u liitaan, halkii la rabay inay dadkooda u adeegaan in ciidamadoodii la isku jabinayo, halkii la rabay in dadka la soo dhaweeyo, la wanaajiyo, loo turo iyadoo garabka lagu wato calankii ummadda Soomaaliyeed. in guryihii dadka maatada ah ay ka barakaceen laga dejiniyo waa ayaan darrow. waa maasanta.